markaas maadaama ay xilqarintaas iyaga saaran tahay iyaga laftirkoodu markay arrinkaaga soo sheegeliyaan waxay u baahan yihiin warbixin fara badan marka meelaha la xidhiidhayaan ma siinayaan iyaga laftirkooda xilqarin ayaa ku waajiba marka haddii ay iskuulka la xidhiidhaan waa inuu waalidku haddii jir samata ka bixiyo haddii kale information ma helayaan waan arkay inta badan qodobada ka hadli doono xuquuqda ay ku jirtaan xuquuqaha waalidku leeyahay haddii dinku leedihiin waan arkay hadda jeer ma qiimeeyaan culays badan ma saaraan baarlamaanku taas oo iyagun inta badan idinku waraaq saxiixin ayay soo helayaan informationkaaga iyagaa isla shaqeynayaan baarlamaankii iskuulkii isafogii meel kasta marka haddii warbixin ilaa UDA-da wixii aad iskaga dhiibtaa miiska lagu soo dhigaya marmarka qaarkood marka haddii waxaa lagula yimaado ad waxaad odhan kartaa aniga yaa kuu fasaxay informationkana UDA-da bixi aniga igu saabsan akhtarkaygu yaa kuu fasaxay iskuulkana yaa kuu fasaxay waad odhan kartaa way waajib qarintaa saaran iyaga waajibku waa inay warbixin kaa bixiyeen xitaa haddii ku arkeen inaad dishay way kaa qoreen beri ani markaa ku dacweynin hadhow inay raboort bixiyaan xilqarin baa ku waajiba markaad waad ku qabsan karta waana kula doodi karta markay waxyaabaha ay u baahan yihiin markay doonayaan inay baarlamaanku soo qaataan information waxaas loo bay soo qaadan karaan dhaqaalahaagay soo qaadanayaan waxbarashada ay soo qaadanayaan cidaad ku xidhanta soo qaadanayaan waxyaaba fara badan ayay soo qaadanayaan maskaxiyan iyo caafimaadkaaga inaad xanuunsatay wixii iskuulkii ifurtay way la xidhiidhayaan marka waad isweydiin kartaa maxay baarlamaanku hadday carruurteedii baan isku haysanaya aniga waxbarashadeeda iyo dhaqaalahayga iyo badahayga ka galay baad isweydiin kartaa markaas taas waa qodob muhiima runtii waa qodob aad iyo muhiima inagu way is odhan karnaa intaa shaqaysta maxaa baarlamaanka galay ama inaan dhakhtar ahay maxaa ka galay laakiin baarlamaanku waxay ku qiyaasanayaan inaad tahay qof waxbartay oo aqoon sare leh inaad tahay qof dhaqaale fiican leh inaad tahay qof networkiisu weyn yahay way qiyaasanayaan haddii soo helaan inaad tahay qof ceed ku xidhan ama naaf ku xidhan weligii aan shaqayntu nolou yimi maxaan ku dhahdaa dhaqaalihiisu fiicnaan network badan lahayd taa lagu soo degdegaya ya anu saasaan aaminsanahay laakiin haddii aad tahay qof maaragtay 100% iyo haysta oo dhaqaalo soo galo oo network balaan hayso xilliga kan badan dalaada loo yara kaadi yani waxbaa inaga soo bixi karaa saas waa marka sababahaas ay u baahan yihiin informationka noocaas way dhacday dhowr jeer ay soo farageliyeen reero Soomaaliyeed oo wax kale ku noqday Bruce waxay haysteen nooshka familiyeed baagan waa wixii markay ogaadeen ay leeyahay shlaba carruurta laga degay reerka laga degay way jirtaa marka taalifkeeda ha fududaysanina inaad net farig yeelataan maxaa kaliya Soomaali laakiin idinku horta waad subaahantiin waxaa laga maarmaana inaad idinku subaahantiin tafaraariqina laftirkiina waa laga faa'iideysan karaya laakiin net farig culus haddii aad leedahay muruq baad leedahay way waxaan ogahay halkan roadhouse-ka maraay wax hadday ku dhacaan roadhouse-ka aad timaadaan 5 qof cididii soo bixi mayso toban haddaad timaadaan net farig waa yeelataan saaxiibo ka baxsan dadkaad isku afka iyo dhaqanka iyo diinta tihiin waa dariska xiriir la yeelataan macallimiinta iskuulka xiriir la yeelataan dadka wada shaqaysan xiriir la yeelataan markii xiriirkiinu uu ballaaran yahay waxaa tahay qof qodobo badan ku taagan dad kale ku hadlaya leedahay dadku garab istaagaa leedahay maadaama wadankii dadku wadanku u dhashay ay ku garab taagan yihiin berito markaas laakiin haddii aad ku timaadaan 100 ama 50 halkaas soo baxaya uu furo waa emergency buu arkaya emergency ma hawa emergency filip ha 100 Soomaaliyeed ku soo istaajiyay maanta biimosna ka mid u leeyahay marka 100 Soomaali oo gacanta saysato arko wax ka xanaaqsan uu soo baxay runtii markuu arko afar Norway ama 5 Norway ila socotana qaba si daran staff minister ka imanay marka inaad network yeelataan oo community-ga aad degantihiin dadku xidhantaan ya ama waalidiin caruur kale ha noqoto ama saaxiibo kale ha noqoto soo dhawaysataan iyaga saaxiibo ka dhigataan si hadhoodin difaacaan waxay baarlamaanka ku hadda u yimi uu soo galay ka kalena dib uu soo socdaa waxa la yiraahdaa waraabaha Britain hooyadii madaayo waa Obama Soomaaliyeed weyn ya ninka uu inantii shiiraankaaga ama gabadhii shiiraankaaga inuu ka qaaday adag maxaa ka xigin ka qaado inankaaga iyada dad maalin qabsataan oo yiraahdo baba hashloot maay waraabahaas uu soo dhacay marka maalinta nabadda qabtada ku tashanin
mustaqbalka ku tasho haddii tan baa laga qaadana waa laga qaadi karaa marka waa inaan kasii gaashato wey markaas adigu warbixintaasay baa soo qaadanaya warbixintaan ujeedooyin bay usoo qaadanayaan ay ka wataan ayaan kusoo gabagabeynaya maadaama waqtigii ugu yahay waqtigii waa inaan soo koobo markaas qofka marka dawladdu gacanta ku hayso gebigiisa oo mas-uul ka tahay waxay ka urursanayaan warbixin aad u fara badan ay ujeedooyin ka wataan markaad naaf aad u tagtid waxay qoran form buuxbuux ilaa awoogaa ka sheekay war maxaad ka rabtaa awooga ujeedaa laga wataa you mere information ay kaa haystaan you waxba ujeedooyinka iska fara badan qodob baa isaguna jira muhiima oo maxaa la yidhahdaa hadda jeer baan ka boodaan qalin lafta kusoo magacaabi doonaa waxa weeyaan marka caruurta haddii ay 11 jir ku weyn tahay ama 11 jir ay tahay kiiskooda xaq waxay u leeyihiin inay ka hadli karaan ilmaha laftiisa loo yar baa loo qabanaya marka kiiskiisu ka hadli karaa wuxuu doonaya wuxuu diiday in laga dhegeysto involving lagu sameeyo xaq uu leeyahay waa qodob sharciga jira laakiin ma sameeyaan baanaba ilmihii oo caawiyo bali ooyo la hooyada baan doonayaa la xajinaya oo la muujinaya markaas waa waxyaabaha lagu haysto baarlamaanka laguna qabsan karo waxa weeyaan inaanay ku sameynin raboorada laga soo qoro sanad kasta waxa la keenaa report la yiraahdo tilsins report oo tilsin waa guddi iyaga controlisa mar walba waxay soo qoraan baarlamaanka khaladka ugu weyn ee ganaan waxa weeyaan warbixin la'aan waalidka iyo parts gulbeedka oo ay ka boodaan ay tahay markaas inaan ilmihii ka dhageysan waxba ilmihii wuxuu doonaya aan loo qiimeyn markaas markay warbixinta soo qaadanayaan waxay ilmaha laftiisa wareysanayaan hadday doonaan psycholog bay u dirayaan adigu way kula soo xidhiidayaan way ku wareysanayaan psycholog bay kula soo dirayaan hadday doonaan maxaan ku dhahdaa meelahan kale institutionada way ka soo qaadanayaan gurigaagay soo booqanayaan dad Soomaaliya waxay ii sheegeen xataa si u soo ordayna talaagada fureen xaq uu ma laha inay gurigaaga dalab soo yiraahdaa bankood ka celin kartaa diyaha ikke hadii adigu aan raali ka ahayn iska soo galaan talaagadaadii badaha garaan xaq ma laha laakiin inay basar u soo galaan dad u ogolaatay ay fadhiistaan dawladuna waxay weydiinayaan tiibiyaan marka baarlamaanka hadii jeer markay warbixin badan ka soo qaateen وكروس الدقيق كمان أكون نتكحل يسوي نبغى ما كم قطمة بنا بقى هوي دولة هوي كدولة دي إن تسوي نفس الدول حاشا ويقولون احترام هذا أبسية هذا احترام هذا أساس وحال بين الحياة لكن هذا تفصل هذا ترى تلاقي فريق غرفة وأنا دوس غرفة هذا قبلت من شو صار وأقول نتدين هل كده يوعدين ذيك لا تحط بدل كتاب لو يبلغ لو يبلغ حقه ما يعني إنه دراسة هذه لكن أكتب قتي وقعدت إنك تبقى نسود واحد وتزمن كيس كانوا يسوي وين فقط ما يمحي كيس كانوا يسوي وين ساعد وحوين ما سبينيسي لكن هذه الحنا عقد بلا مستركو ده تشبسي ويشران قارنت حفيز كده تران قايلنا يا دو حلون يا هي جير كرافتي ولا عقر يوم سير بدو محكمة الله يرحمه ده اسمه كنترول كرت أو يا حنا سمسوا هي جير سونو أجير وحسين هذا الناس كريمنا وحسين كاقرية يقول كودو الدنيا ما تكنا حوشين كيسكيا لكن إذا أمير قوا عادي ودقن ده تقول عندي بالفرحة لو بنشوف سوون هذا نقول كده بالفرحة لو كيسكوت هذا تلاقي دي بحاله فرتين محيط يسوي تلاقي دي فرتين يا بدوران وقدام بيتها ريبورت بيسمينا يعني ريبورت كاس مركز أما وي لابي يعني كيسكا أما وي يسيوه يعني بارس رتهارك مسي دحقليو بارس رتهارك وحوي قفك حقوقه وليه كيسكا كميد كعا والدك قايبو كي هاي المهم قايبو كي هاي إيونا قايبو المقنعين مكا قايبتن محمدين يقالين لو مادام شروط دا لفتر كده قايحيس إن بان واقع حقوق الله هاي نفسيا سلوين iyo xalay kusiyan bal xaq ugu leedahay in meel kale oo caawin kara hadii waan caawin karin ay ku diraan ay la xidhiidhaan waliba iyagu hadii bilmata gurlaan ay soo dhibka ka haysan gurlaan yahay iyagu la xidhiidhaan community ay dhahaan qofkaas guriga ka maqan gurisiyo kale in maartay aad
shirarooda dhashaan wada shaqaynaysaan haddii dhaqaaluhu kaa liibto inay dhaqaaluhu ku caawiyaan inay haddii caruurtii baanhaaga aan ugu haysan inaad ugunaha aad shaqayn sidoo kale ay baanhaaga degdeg kugu raadiyaan waxyaabahaas oo dhan oo kula qaban karaa marka ku heshiisaan laakiin waxaa la doonaya 3 bilood markay processka bilaabmo hadday kiiska rabaan inay wataan 3 bilood waxay samaynayaan markaas baaritaana markaas 3 bilood oo 3 soo booqanayaan iskuulka la xidhiidhayaan information ka soo qaadanayaan marka 3 bilood ayay card leegin ku samaynayaan ama maxaa la yiraahdaa baaritaan waxay ku sameeyaan baaritaan waxalaala wixii markaa familigaaga wixii ka dhiman iyo wixii dhiba haysta taas waa normalka waxaan idinka sheekiyey waa waxa sida caadiga ah loogu talagalay waxaan inuu shaqeeyaan wax ka khaldanna ma jiraan inta badan laakiin khalad ku dhimanayaa marka misuse lagu sameeyo ama lagu xadgudbo sharciyadii international ku dhigtay Norway joogna isticmaalaan imika caruurta Soomaaliyeed la qaado inta badan processkan in yar loo maraa inta badan waxa lagu qaadaa wax la yiraahdo acute waa arrin degdeg ah xaalad degdeg markaas processkan oo dhan soo marayaan laba booliis soo kaxaysanay albaabkooda ugu soo gargaraanayaan ilmihii ama iskuulkii bay ka kaxaysan already ama baanhaagii bay ka kaxaysteen ama gurigaa bay ka dareersanayaan laakiin sharciga acute-ka waxa weeyaan noloshigu waxay dhahdeen waxay ahayd inuu 99.5 dhaco laakiin hadda wuxuu dhacaa 100% u dhacaa يعني waxay leeyihiin inuu yaraaday acute goorma lagu talagalay in sharciga la isticmaalo marka ilmaha loo geysto falal aad u khariban ama dil khatara ama farxmayn ama mashaakilada noocaas loo geysto ayaa loogu talagalay sharciga la isticmaalo marka ilmihii xaalada xun ee ku jira marka laga cararo meel la geeyo si loo badbaadiyo dabeetana baaritaan lagu sameeyo loogu talagalay laakiin imika waxa loo isticmaalaa sharcigaas ee noloshu isticmaalaan hadduu ilmaha xataa been sheego uu tago dawladda uu dhahdo maaman minhaa sagtale ama abahay baa yidhi ama hooyadii baa yidhi waxaway ilmi acute procedure lagu sameynaya Soomaalida iyo ajnabi badan iyo noloshi adigu noloshi ku degdega qodobkaas ku degdega marka qodobka anigu aan siyaasiin ka doodno hadda jeer annahnu de ma noqonaysa acute inta shaqo sax lagu sameeyo hadduu ilmihi waa la yidhi in processka caadiga la maro la soo xaqiijiyo in la diliya kale waqtiga soo caday wax soo cadeeyaa in loo geystay waxaan leeyahay soo ma ahayn laakiin waxay ka haystaan awoodda badankeeda waxay ka haystaan waxa weeyaan dawladda mar walba u sii kordhinaysa awoodda ay ka haystaan in marka la yiri ilmaha hadda caawimadooda diidin caawimadu si walaga qaadaysa awood kordhin ma soo degdegaya markaas marka anigu maanta waxa weeye halkaas ku joojinaya anigu casharkan because waqtigii aan soo talagalay baa sii dhamaanaya oo ku soo noqon doona hadhowto laakiin waxaan doonayaa inaan ogaano ujeedadu inay tahay inaad haysataan tool iskaga celisaan marka la soo weeraro qalab ama dee aqoon ama wax aad markaas haysataan aad idinkuna dee ku doodaan marka adiguna aad passive noqon iyaguna active laakiin haddaad isku aqoon noqotaan ama isku haysataan qalab markaas waxay noqonaysaa laba qof oo doodaya siman si kala qof marka hal shir waxa weeye waa normal qofku inuu saa u reaction ka noocaas bixiyo haddii dawladdu baa soo weeraraysa mugti waxaan waa dawlad awood dawladeed laakiin haddii arkayaan inaad fahansan tahay adiga laftarkaaga xuquuqahaaga way gaabsanayaan markaas taasaa muhiima magaraysa inaan fahano haddaba qodob kasta oo isticmaali kartid wuxuu ka kooban yahay saad u isticmaali kartiin caawa casharkaas aan ka faa'iidaysano markaas allaha ku wareejinayaa waad mahadsantihiin dhinacayga